wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Ambassador Maxamuud Jaamac Galaal oo kala hadlayay kumanaan shacab ah oo iskugu soo baxay khayriyada magaalada Burco ayaa ku dhalay xisbiga mucaaradka ee wadani inaanu soo bandhigin siyaasadda cad balse mas'uuliyiintiisu had iyo jeerba ay isku dayaan in aflagaadeen iyo waliba ay kula kacaan mas'uuliyiinta kale ee xisbiga talada dalka haysta ee kulmiye wasiir Ambassador Galaal ayaa fariin u diray xisbiga mucaaradka ee wadani kii wuu dhaqaaqay ciidii way dhaqaaqday burco way dhaqaaqday aad iyo aad baad u mahadsantihiin taageerada iyo niyad samida iyo dadaalka aad u muujiseen xisbiga iyo murashaxiisa waxaynu magaaladan iyo gobolkan aad u loolamaynaa kula tartamaynaa xisbi xad jir oo ekstriima waxa ka kaahaya cuqdad nacayb iyo naxli waxa uu xisbigaasi ku tabadoonanayaa cay iyo aflagaado iyo wax diinteenna mamnuuc ka ah waxa weeyaan mas-uuliyiinta asxaabta xil baa saaran mas-uuliyad baa saaran xisbigani waa xisbiga waddani intuu fagaare isa soo taago dad wada dhashay oo muslimiina inuu gaalo ku sheego ama shadaadiin ama iblays waa xisbiga laga hayo ummaddani qaran baynu dhisaynaa polarization iyo kala fogayn uma baahnaa si qurux badan in tartanka loo galo oo loo kala badiyo oo edab iyo anshax iyo asluubi ku jirto ayaa loo baahan yahay waxa weeyaan xad jir iyo wuxuu doono iskaga hadle looma baahna waa la doodi karaa waa la isdhalliili karaa iyadoo aan mas-uuliyadda laga tegin iyadaan milgaha laga tegin iyadaan xarragada laga tegin waxa aannu annagu ka jawaabnaa waxyaabaha bolisiga ah ma aytanno bolisigaannu ka jawaabnaa eedaha ay hawada soo mariyaan iyo aynu ka jawaabnaa ista kale wasiir Ambassador Maxamuud Jaamac Galaal waxa uu ka jawaabay dhaliilo muddooyinka ugu dambeeyay ka soo yeeshay xisbiga mucaaradka ee wadani taasi oo in xukuumadda xisbiga kulmiye ay kor u kac uu ku yimid sicir bararka muddada ay talada dalka haysay sicir bararka 7 sannadood iyay dawladdani xilka haysay 6 ka mida afrika iyo qaaradda ummadaha ugu sicir bararka hooseeya iyaynu ahayn maxaa dhacay wax fara badan oo ilaahiyana abaar gaagma reebta ah xoolihii aynu dhoofin jirray oo laynaga iibsan waayayoo kastamarkii xisbiga kulmiye siyaasad iyuu kaga baxayaa arrimaha waxa weeyaan diversification iyo inaynaan kastamar keliya yeelan magaaladan burco waxa laga maalgeliyey warshad hilibka xoolaha nooluun diri mayno intaynu qallo oo moorgarayno barafayno iyaynu diraynaa isku hallayn kari mayno cid keliya waxa kaloo sicir bararka keenay arrintaa dhammeey waxa kaloo sicir bararka keenay dawladdu xoolo badan iyay ku sii daysay suuqa markay dadkii u gargaartay ee ay biyo iibisay ay dawo iibisay ay raashin iibisay